من المرحيم باورك oo ku kacsan yahay waxa sameeyay waa dhaqaaqay intaad dhaqaaqan ka hor waxa fiirinay muraayada dhexda midda bidixda iyo midda midigta kadib signal la sameeyay muraayada dhex fiirinay waa dhaqaaqay marka abaar socotid signal left take the next left onto Burnt Oak Broadway A5 waxay ku dhaaday gacanta bidixda u leexo marka muraayada dhex fiirinay kadib muraayada bidixda fiirna waa istaagay calaamadaas hore cadda ah waxay tilmaamayaan in labada dhinac iska fiirsid kadib waa soconayaan qadka ay istaan continue on A5 for 5 miles waxay ku dhaaday hor u soco 5 miles kadib hor u soco marka waxa fiirnay speed limit laamiyaasha ku dhagan yahay labada dhinac speed limitka waxa loogu talagalay 30 miles per hour 30 miles per hour wada kasto loogu talagalay marka waxa fiirnay labada dhinac geesaha kadib waa socotaa muraayadaha iska fiirnay dada wadada soo galayo inaa iska fiiristo way dhexda isku aadinaya marka labada gees waxay aadayaan bidix iyo midig adii straight rabtaa inaad hor u socotid waa istaagay marka traffic light waaye waxa sugay nalka ilaa uu iska bedelayo nalka markuu green noqdo yellow ka soo horeeyo yellow is diyaar waaye kadib waa kaas yellow soo baxay kadib green soo baxay waa dhaqaaqay marka muraayadaha geesaha iska fiirnay dhexda then waa dhaqaaqay marka the right side and the left side waa soconay marka because straight aa socotaa adii right na uma socotid left na uma socotid so dhexda qabsanay marka because bus lane xaq ka imaanayo so bus lane waa ina give way asis asa kale bus lane ka sometimes waxa ku qoran timeska American tid iyo times aad American wadada waxa loogu talagalay 30 ilaa 40 oo ku socon kartaa laakiin 40 ma ka badan kartid speed camera ku duubayso tigida lagu soo jaraa 6 points waa ka jarmay hore u soconay waa 30 miles 30 and 40 between 30 and 40 baska bas mareenayna marka hadoo signal sameeyay ina sugnayd laakiin anaga ka hormar hore u soco wadada waa furan tahay green waaye ma ahan red green adaal speedka mar walba waxa fiirnay saacada oo soconaa aan ka gaarin waxaan ku soconaa 30 ilaa 40 intuu dhexeyso ma ka badan kartid laba traffic light waaye mid waxa loogu talagalay dadka ka gooyo waa laga celinayaa inaad istaagtid waaye midna baabuurta kale waxa ka istaagay hadaa gashid serious fault ama dangerous fault waxa la sameeyay straight u soco straight wadada front ah cabsan horada fiiri then muraayadaha dhexda iyo labada geeska mar walba iska fiiri marka cabaar socotid maxaa yeelay waxaad baaskiil iyo mooto dhinacaaga soo mari karo ama baabuur kale rabo inuu ku baaso so always you have to check the right mirror and the left mirror okay always check in the mirror inside and the right and the left and then reduce your speed move slowly public aku dhex socotaa waxa loo baahan yahay inaad baabuurka iska tartiibsatid soco marka ku soco adaa kale don't scare ama don't afraid cabsanin kan mujada naqalka biliqsiina anaga kale inuu istaago ku qasban yahay because wixii midig kaaga imaanayo adaa kale wixii bidix ka imaanayana ayaga kale so you have to stop right markii baabuurka imaanayo dhexda isku aadi mar walba markii wadada loo soo dhow yahay saddex qayb isku bixiya waxa position ka isku aadinay hada dhexda ku socotid it means straight arabta hada left qaadatid it means you need to turn left side or you need to turn the right side so keep going now we have to stop definitely because the traffic light comes red so you have to stop so always you have to do space with between the two cars waa ina labada baabuur dhexdooda space asisa at least you can see the tires in front of you
If you don't see the tires, it means you cannot control the car when you're moving. If that car stopped emergency. So we have to wait until the yellow and the green comes the traffic light. Okay, now we will have to move. Check the mirror, right and the left, and enter mirror. Okay, move. Don't be off right. Go. Keep going. Yeah, keep going. Keep going. This car is speed limit loogu talagalay markuu socdo. Tartiib u socda. Waxay ahayd inuu xoog ku socdo. Mana baas marey karno. Baas mareen waxaa la overtake. Look, he's overtake. Weliga allaha baawur haka overgrade haka baas man right side. Because baawur soo socda kugu imaan karo. Kanna wadada ku jira. When you make an overtake, you have to see if there is space in front of you. Okay, we have to stop. The green way sababta u istaagna waxay tahay wadada block eh. Green way waa soconina doesn't work. So you have to wait until the car in front of you move forward. Okay, go ahead. Because the GPS cannot tell us anything at the moment because we're going straight at least 5 miles away or maybe 7 miles away from here. Okay, so we have to move now because the road or the street is not blocked. Go ahead, go away, keep going because waxaa ka socda inta walking construction. Xaggan ku soo aragnay calaamad sheegayso oo ku dhehayso there is walks road ahead. It means there is walk roads ahead. It means la socotaada waxaa ka socdo dhismo wadada. Say wallahi idin saara next time. Somali English idin ku hadlaayeen. Okay, wadadan aan ku soconna waxaa la lahaa Hannington Road. Because the screen will keep going. As much as the traffic light screen, you free. So now we go preach. These people now we go speed limit. You have to check this bridge crossing the jump. People going this bridge, they don't need jump. Okay, 30 aa loogu talagalay camera ku duubayso haddaad 30 ka badatid between 30 and 40. London barbally meelaha dadka oo isku imaadaan at least 30 20 30 40 between 30 and 40 and 20 will go ogolyahay. Hadda you see this car is going 30, less than 30. That's why I'm reaching him. That's why I'm approaching him. Okay, go ahead. I can overtake. Okay, I will try to overtake. Okay, when you overtake, you have to take your line. Everyone has a line. Look, everyone has a line. You have to signal when you change in the lane. Otherwise, the cars behind you comes you. Anytime you need to change the line or the lane, you have to signal whether it's right, whether it's left. Then, okay, anytime you need to change the line, waqti kasto aad baahanta inaad leenka bedelatid waa inaad signal. Look, this guy, he wants this left and right side because the power ka dambe wuxuu ogaanaa meesha u socotid ama uu ka istaagaa ama uu ku siinaa. wadooyinka waxaa ku dhagan calaamad sheegayso speed limitkaada. Marka xoog ku socotid way kugu xanaaqeen. Weji waxay samaynaysaa angry face. Haddaad speed limitkaada saxda ku socotid, they give you face smiling.
face smile la ku siinaysaa ismiina dadka lagu dhiirigelinaa inay sharciga ilaaliyaan waddankan sharciga ka jiro wax traffic oo jidka taagan ma arkaysid nin walbaba sharciisa ku socdaa hadda xadka ka baxdid gurigaada warqad lagu soo diraa adoo ogeen kaamira ku soo sawirtay meesha lagu sawiray saacada lagu sawiray been ma sheegi kartid lacagta bixine haddii kale 6 points laga jaraa so marka you have to always follow the rule no one above the law no one above the law so we have to do the right thing marka you have to this guy you see he's sinking in the right side Caution. wait minutes wait you have to okay look that guy gives him the kasasi wadada okay hada ku socotaa marka always check the mirrors right side left side and the inside mirror first inside the inside mirror then right and the left what you need to do waxaa la jiraa waddankan bus lane time la mari karaa jiro iyo time aan la mari karin so you have to check board ku dhagan before aadan gaarin waa kana boardkan wuxuu dhahay Monday to Friday 7 to 10 am intaas ma mari kartid sometimes 24 hours arkaysaa bus lane aan la mari karin okay the yellow box jiro you can't go the yellow box unless you turn right the yellow box every or traffic light oo imaada baabuurta kale ka soo baxaan marka adiga yellow box unless you turn right or unless you going straight otherwise you cannot stop here yes the yellow box in front of the car now yellow car box kaas Allah go ahead gotta okay because always mar kasto aad rabtid inaad bidix gashid ama right gashid you have to half the lane you see I'm going now left side right side because I can't go cross the box yellow box waa geli karaa because waxaa socdaa right I have to signal waa inaad signal garaysid si baabuurka dambeeya u ogaado inaad midig u leexanaysid and go ahead you see this yellow In a box quarter of a mile, turn left onto Walm Lane. waxay tiri rubac mile markaa socotid bidixda u leexo because guriga ii wadaa agtan GPS-ka ku xiran tahay GPS-ka asaa ku hagaay haddaan meesha adresska aqaanin laakiin aniga aqaanaa gurigayga laakiin waxaan rabaa inaad dadka ay fahmaan in oo GPS-ka ay dhegaystaan Take the next left onto Walm Lane. take the next left ku tiri jidkan waay mujeeda kan waa mujeeda left aan galay left ii celis you see lefty take In the 200 yards, at the roundabout, continue straight to stay on Walm Lane. so rain about soo socdo waxay ku tiri rain about soo socdo toos u soco rain about waxa la dhahaa waa jidka meesha iska kala baro Allah straight waa rain about waa imaanay slow down because waxa ku yaal speed limit reduce In 200 yards, turn right onto Exeter Road. xogaa markaa socotida waxay tiri gacanta bidixda ah u leexo adinka idin leexina maanan guriga u aqaanaa Turn right onto Exeter Road. she said waxay tiri midigta u leex signal sameeyne muraayada iska fiirine kadib dhexda isku aadine meesha geeska ma mari kartid ilaa inta geeska kala leedahay left side ee baabuurtan UK ku socdaan then In go a quarter of a mile, at the roundabout, take the third exit onto Mapsbury Road. waxay tiri rain abaada soo socdo third exit ka baxay ku dhahay third exit meesha waxaa laga wadaa exit anyway markaa meel ay meesha kaga bixi lahayd way so the third exit it means third exit rain abaada imaanayo third exit ka baxay ku tiri gacantaada midigta go ahead markay aamusan tahay hor u soco way markay adii wax kuu sheegin inta kale waa iska soconay markay wax kuu sheegto waxay kuu sheegtaa sameeyne waa kana run about waa imaanay one waxaa ka imaaday an exit gacanta bidixda the second is straight way the third exit is the right side way so we have to think and then
ina leexanaya marka then go ahead keep In going 150 yards, at the roundabout, continue straight to stay on Mapsbury Road. run about imaanaya ku tiri continuous wad soco until meesha aragta ka gaaris waa kana run about kana la isgooskan waay marka imaadidii you have to reduce your speed and then check the right side always gacanta midigta iska fiiri bidixda ayaga ka istaagay laakiin midigta ma ka istaagay waa kugu imaana In a because quarter of a mile, Adogo- Mapsbury Road turns left and becomes Wilsden Lane, A4003. yes Wellesley Lane waa jidkaan deganahay inta always gacanta midigta iska fiiri baabuurkaaga imaanaya haddii aadan baabuurkaas ka istaagin as shaqadiisi maan oo kugu keenaa inshuransigaaga lacag lagaa qaadaa baabuur cusub aa loo gadaa hadda kan fiiri jidka dhexbartanka oo wuxuu ku sameeya U10 waxa la you see U10 waa xarood naagtaan ma fahant sometimes U10 markuu imaado ina baabuurta ka istaagtid always check the right mirror always iska fiiri because ayagaa kaale waa ina Mapsbury Road Masha, turns waxaa lahaa left and becomes subscribe road. Wilsden Lane, Why not A403, speed limit then to turn Mesa? right onto Christchurch Avenue. هذا يوكي هذا باور بتنا كودي ساينس كعلامة اللي فينا اللي باورنا جد كودي وسكب بيبس مان ساين علامة وكسعنا there is a rule باور تنا كالي Take the next right onto Christchurch Avenue, then your destination will be on the أو right. هايتني قرقا قوائم ما دي قاعد تمدك تقول له and then this is your destination ماشي أسعت واي so مركو حربة إن باكين قالوا I have to signal the right side Your then destination is on the right. you see your destination on the right I didn't ask إذا كو شغل GPS كا ما بغي أقول له سعده ماشي على أقونن وحكو سهلة أدابر تحت GPS كإنا أوبر نقطي أوبر إيد أو أوبر فود أنا ماشي على الهواء ماضي وحيدين لي هاي دعوة شو عن سبسكرايب هاي لوبينا مع الله هاي لوبين إنا لايك سارتد إنا شير لهدد صاحب هذا كله أقارسيسد our YouTube channel that's it have a good day guys ساعدوا عشية ساعة 6 o'clock أما 7 o'clock ساعدوا عشية ساعة المحلها قويته ولا بيته عشية ساعة تضرب ساعة صبح نمو تضرب ساعة أما 7 o'clock تضرب ساعة صبح نمو أما محلها تضبطيو صبح نمو وهكذا مركب وحيدي رجعي 10 وناكسن كفايدي سوعا don't forget about to subscribe our new channel like comment share with your friends and your families thank you very much have a good day cheers bye bye